wafdigaani uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaab ayaa ka soo baqolay degmada Cadaad ee xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Galmudug taasi oo maalmo ka hor uu soo gaaray kadib wada hadal la dhex maray asaga iyo maamulka Al-Sunna oo ku dhamaaday heshiis madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo wafdigiisa ayaa waxa afaafka hore ee magaalada Gaalkacyo ku soo dhaweeyay kumanaan shacab mas'uuliyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo caleemo qoyan iyo calanka ruuxayay ugu horeyn waxa halkaasi ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaab duqa degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre sidoo kale waxa isaguna hadlay gudoomiyaha gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdirashiid Xaashi Cartan oo madasha ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaab iyo wafdigii la socday soo dhawaada waxaana soo gaaray wafdi ballaaran oo madaxweynuhu hogaaminaya galabtay aan Gaalkacyo ku soo dhaweynay waqtigu waa gaaban yahay aad iyo aad baan madaxweyne booqashada kaaga mahad celinaynaa Axmed Geelle dhammaan wafdigu uu hogaaminayo waxa inoo tahay galabta sharaf weyn inaan ku soo dhaweyno magaaladiisii Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug madaxweyne sidaad arkaysid waxa geesaha dhooban waa bulshadii dadka gobolka ku dhaqnaa waxay ilaa maanta u taagnaayeen soo dhaweyntaada waa ognahay howlo shaqo oo fara badan inaad ku maqneed oo u horeyso mideenta Galmudug iyo keenistii caasimadii ballaarneed aad iyo aad baad u mahadsan tahay sharaf bay noo tahay maanta inaan kugu soo dhaweyno waxaan rajaynaynaa insha Allah soo dhaweyn kadib inaan wax allaala wixii talay tusaalaha aan noo wadid aan ku kala qaadan doono hoyga gunaanadkii waxa qodbad halkaasi ka jeediyay lana hadlay shacabkii soo dhaweeyay Axmed Ducaale Geelle Xaab madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug meeshan waxaan u imid nabadayn ayaan u imid waxaan rabaa nabadii waa soo dhamaatay meel walba Gaalkacyo ku soo hartay nabad la'aantii ayadana qaawi bari aan dhamayna inay ka jirto cid kastoo maqal cid kastoo ogow insha Allah waxaan rajaynaynaa maanta iyo caawa iyo bari iyo saar dambe inaysan lagu gaarin magaalada Gaalkacyo oo kala xiran magaaladan gali doonaa waa iswarsan doonaa maaragtay odayaasha dhaqanka iyo dadka oo dhan aqoon-yahanada cid walba maaragtay iyo gubernatooraha iyo mas'uuliyadda gobolka dhammaantood waan is arki doonaa waana ka wada hadli doonaa nabadaas ayaan u nimid ayadaana dhammayn doonaa insha Allah imaatinka Gaalkacyo ee madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug wuxuu ku soo aadayaa xilli maamulka Al-Sunna iyo Galmudug uu dhex maray heshiis lana filayo in caasimadda rasmiga ah ee dowlad goboleedka Galmudug ee magaalada Dhuusamareeb loo wareejiyo maamulka Ali Maalin telefishinka Hon Cable Gaalkacyo